guusha iyo horumarka ummadi gaadho waxa keena sida ay u fahmaan una qaabayaan waqtiyada kala guurka ay soo maraan dib u dhacoodana waxa keena faham la'aanta marxaladda kala guurka sidaas darteed waxaynu maanta haysanaa fursad qaali ah oo aynu mustaqbalka dalkeena ugu horseedi karno nabad barwaaqo iyo horumar haddaba si aynu yoolka u gaadhno waxa loo baahan yahay inaynu seeska iyo salka u dhigno sharciyadii ay ku dhismi lahayd dawladnimada cusub ee Soomaaliya maadaama aad tihiin wakiiladii dawlad goboleedyada waxaa lidinka baahan yahay in sharciyada aad u dhigtaan ugana shaqaysadaan sida ay u noqon lahaayeen kuwa ka jawaabaya baahida shacabkeena daalan kana ilaalisaan wax kasta oo dib ugu celinaya waqtiyadii madooba ee aynu ka soo gudubnay mudanayaal iyo marwooyin saratanada sharafta leh sharciga ay ku dhismayso hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranku wuxuu ka kooban yahay 7 cutub iyo 250 qodob oo si faahfaahsan uga hadlaya waajibaadka hay'adda qaab dhismeedka hay'adda awoodda hay'adda astaanta iyo calanka hay'adda maaliyadda hay'adda magacaabista iyo xuquuqda xubnaha hay'adda iyo qodobo kale oo muhiim ah mudanayaal iyo marwooyin sanatarada sharafta badan hay'addani waxay sharci la'aan ahayd muddo 53 sano ah sidaas darteed waxa taariikhda ku gali doontaan la idinkuna xasuusan doonaa inaad noqon doontaan kuwii ugu horreeyay ee haddan sharci u sameeyay faa'iidada sharcigan uu leeyahay waa in lala xisaabtami karo hay'adda qodobada ugu muhiimsan ee sharcigan tilmaamaya waxa ka mid ah in qofka aan hay'addu hayn karin muddo ka badan 48 saacadood labo inay hay'addu qofna xiri karin waran maxkamadeed la'aantiis saddex hay'addu ma yeelan karto xasbiya ama jeelal qarsoodiya oo ay dadka ku xidho qodobadani waa kuwii ku suntanaa tacadiyadii lagu geystay magaca hay'adda sidaas darteed ayaa sharciga loogu cadeeyay in laga saaray si aad ugu xisaabtantaan idinka iyo shacabka Soomaaliyeedba waxaan iga codsanayaa inaad sharcigan siisaan kalsoonidiina si uu noqdo mid dhaqan gala oo hay'adduna ku shaqeyso laguna xisaabtami karo waxa kale oo indiga codsanayaa maadaama sharcigan uu soo maray wax ka bedel badan idinkuna aad tihiin kaalintii saddexaad inaad noo fududeysaan ansixintiisa si uu noqdo mid haysta kalsoonida labada gole madaxweynuhuna u saxeexo si ay hay'addu u sii wadato una laabto dagaalka lagula jiro khawaarijta oo ay kaalin aad u muhiim uga jirto hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waa hay'ad federaaliya iskaashiga wada shaqaynta wanaag leh Soomaaliya Soomaaliba guul iyo gobonida maasantii